warqadii rasmiga ahayd ee ka soo baxday golaha midowga murashaxiinteedii soo saaray mowqifka ay wixii arrimaha socda ee doorashooyinka iyo dadaalada socda iyo fadhiyada iyo shirarka ka soo baxay annaga nagu aadano midkaas waa rasmiga ah. waxaan rabaa marka inaan sheego muhiimaddu waxay tahay in annagu aan u soo taagnay muddo dheer in dalkani doorasho rasmi ah oo xor ah oo xalaal oo cadaalad inay ka dhacdo. doorashadaasi marba meelay soo taagneeday maanta meeshaan ay joogtaa. waxa aan diidanahay waxa waaye wuxuu inay caddaadaan aan rabnaa. waxa soo socda in la garanaayo, ergadayaa soo xulaaya in la garanaayo, cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanaayo. maadaama golaha shacabka la yiri weli Soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu mathalaa in beeluhu ay fursad u helaan si sax ah ay ugu tartami karaan kuraasti ee aanay u ekaanin magacaabis in magacaabayo qof magacaabay aanay u ekaan shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay caddaato. oday dhaqan haddii la yiraahdo oday dhaqan waa magac guud waa badan yahay, laakiin dadka Soomaaliyeed wax la garanayo hadda koor soo shaqeeyay la og yahay waa 135 wixii dhintay waa la bedelay horaa loo bedelay haddana wixii dhintay kale waa la bedeli doona. kii asagu diido anigu doorasho ka qayb galin ma yiraa sax xor ah bedelkiisa la keenaya, laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aad u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin ay gacanta ku hayaan. dadkaas gacanta ku hayaa wax ay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon haday guddi tahay haday dawlad goboleed tahay waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada eeganayso oo wixii la isku ogaay maaha waxaan berri ay dhihi karto waayo ujeedadeen marka wuxuu inay caddaadaan ay waadix ahaadaan ayaan rabnaa. koo doorashadan waa doorasho dadban dib u soo dhacday sida bayaan ku cad 2 jeer oo waqti la qabtay marna 2 bilood la yiri marna taariikhiya la qabtay ay dib u soo dhacday. hadda inaan dib u sii dhicnaan rabnaa maaha dacwadeenu maxay dib ugu dhacday maaha waaba dhacdayba, laakiin haddaan rabnaa inaan dib u sii dhicin oo la sheego maalin hebelay saas waxaasi dhacayaan maalintii la sheegana inay dhacaan rabnaa. waana dhici kartaa han qabnaa oo asbaab aanay u dhici karin oo waaweyn oo la garanayo hadday yimaadeen waaba loo wada joogay, laakiin qorshaha inuu cad yahay oo ay doorashada waqtigeedii ay ku dhacdo ayadana waa rabnaa. waxaa intaas dheer doorashada waa doorasho dadban culayska in laga yareeyo waxa in la fududeeyaan rabnaa oo aan aad loo cuslaynin oo dadka aan lagu dhibin. dalka duruufo gaar ah ku jira, dadka Soomaaliyeed duruufo gaar ah ku jiraan, niman dhib badan oo maxaan ku raadnaa nabadiid ah dalkii muxuu ahaay iyo amnigiisii iyo wixii dhan culays ku ah. annagu inaanan culays kala aanan sii saarin wax hadda aanan la garanayn qiimaha weyn oo maxaan ku raadnaa ay doorashada ku soo kordhinayaan laakiin la garanayo culayska ay ku soo kordhinayaan. dalka doorashada ka dhacaysaahay kuraasta beelaha lagu matalayo meelaha ay ka dhacayaan waa la wada ogyahay. meel dad deegaankaas dadkii joogay kaliya maaha wax codaynayo, deegaano fog fog dadka imaanaya codaynayo, kuwaa la soo qaadaya diyaarada soo raacayo, deegaanka lagu codaynay aan guryo ku lahayn ee degayo ee muddo ku noolaanayo. waxaasoo dhan waa kharash, haddana in qarashka la sii dul saaro ma rabno. baaritaan aan la garanayn ninkii shalay xildhibaanka ahay ee hore inta loo soo baaray muddo 4 sano xilka soo hayay haddana maanta maxaa loo sii baaraa oo haddana loo yiraahdo sharci xasaanad ah 4 sano xilka soo hayay. dabcan ka cusub waxaan dhahnay hal la baaro waa qodob erga 100 qofood ah oo awal baa anagu aan qabnay 100kan muhiim ma ahayn, laakiin daragaa inay ay kala heshiisna waa lagu qoray maadaama heshiisyada lagu qoray wixii heshiisyada lagu qoray in la aqbalo moogiya awalna inay muhiim ahayd umaanaan arkaynin. haddana waa la sii cusleeyayo ayaga yaa la baaritaan loo diro waxa laga baarayana lama yaqaan. waxaan rabnaa waxa laga baaraya in la yaqaano waxaas qofkii ku caddaato caddayma loo helo dambiile ah yaan la soo dhaweynin. maxkamadaha hore u xukuntay xukunka waa yaalla waa qoran yahay waa la garan karaa dood kama taagnaan karto. argagixisoo fal ku lahaa maalin hebelow meel hebel qarxiyey maalin hebelow muxuu ahay qof hebel meel hebel ka qayb galay maalin hebelow kooxdaas magaceeda ku hadlay waa la garanaya waa la sheego. laakiin in dadka Soomaaliyeed lagu maalin walba ninkii la rabo la diidan yahay in buraash la mariyo
oo la yiraahdo waa argagixis iyo waa muxuu ahay waa dambiile aan la garanay xukun dhacay waa waxaan ka hadlayno inta dadka maxkamadaha meelaha qaarkood la tago la yiraahdo hebel maxkamadaha dacwaa ka taal ma waliba dambiyada sibiilka daynaan ku leeyahay ninkan haddii nin yiraahdo doorashada ma looga reebaya waxaan u baahanahay waxaana in ay objective ahaadaan caddaadaan xildhibaanka murashaxa ah ee xildhibaanka kursiga doonanayo ee kursi walba 3 4 5 10 qofood ay u wada socoto muwaadiniinta oo gabdhay wiilalba leh kursiga inay soo doonato waxay mudan tahay yaa waay inay cad yihiin aan rabnaa oo aanu qofka asoon oga lagu soo diidi doonaa ama lagu soo ogolaa doonaa asoo lah inuuna meesha soo aadin ee in la diidayo hadduu ogyahay gurigiisa iska joogo inuu shuruudihii buuxiyo hadduu ogyahay uu nadiif yahayna kursiga inuu soo doontaan rabnaa dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annaga midowga murashaxiinta waxaan u taagannahay mar walba oo mabda'iyan aan u taagannahay dalkan dimuqraadiyadiisa in la ilaaliyo dadka Soomaaliyeed xuquuqdooda in la ilaaliyo waxa uu xaq u leeyahay qofka muwaadinka waxa ay xaq u leeyihiin jamaaca ahaan marka hadda la cayimay oo la yiri beel hebel haddii shalay aan soo marnay meel odaga uu wax magacaabo maalintii kale aan soo marnay odagii oo odayaasha kale ee maxaan ku yiraahdaayay kaashanaya beesha ha soo xulaano dadkii si aanu hal qof wixii ugu takrifalin oo sidoo rabo aanu uga yeelin qof aamin ma jira nidaam aamin ah jiro nidaamka inaan aamin ka dhigno oo nidaam lagu kalsoonaa karo aan ka dhigno waa ay muhiimadda ugu weyn oo aan anagu u taaganahay waana u taagnaanayna shalay wixii aan diidnay oo haddii aad kororsiimo haddii aad sharci darro haddii aad qaab darro kale oo maxaan ku yiraahdaay wax lagu malmalooqayo maantana waa diidaynaa berrina waa diidi doonaa hadday timaado walaalaheen madasha kulankeedii ay qabsadeen iyo wadidii ay doorashooyinku wadaan ayagaa mas-uul inay wadaan dood iyo dacwo kama qabno laakiin sida ay noo wadayaanaan rabnaa inaan talo ku lahaano waana midda hadda aan soo jeedinayno oo wixii shalay aan ka qabno doorashadu haddii aanay toosnayn dhibay keenay waana sida loo sheegay dhibka annaguna waayo aragnimaan u leenahay Soomaaliya doorasho xumaato waayo aragnimaan u leenahay dariskeena maanta wax ka dhacay dalalka dabeecadaheena la oo dagaalada sokay ka soo baxay oo Afghanistan iyo Liibiya iyo Iraq iyo kulli ay ka mid yihiin maanta wax ka dhacay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin oo ay u sababtay doorasho shalay xumaatay doorashada yaani naga xumaanin horey noogama xumaanin wada ogolaan ku soconay dadka Soomaaliyeed ha loo nuglaado waxaan leenahay golaha waxaan leenahay madashu ha u nugloonaato ha dhageysato dhawaaqa dadka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin